waxaan qayb ka nahay soo dhaweynta wafdi culamo Soomaaliyeed oo ka imaanaya magaalada Hargeysa iyo dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ka qayb gali doona wajiga labaad ee bandhiga kutubada ay alifeen culimada ahlu sunna wal jamaa ee Geeska Afrika. حبيبي محمد عليه السلام الله يا حدي يا دعني حوس الصورة يا حدي يا دعني حوس الصورة إلى ديبتي ربعي للصفا إلى ديبتي ربعي للصفا اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم على daawadayaal imika waxaynu taaganahay ilinka hore ee garoonka aadan cadde culimada goordhow ayna soo gaareen waxayna si toos u aadi doonaa guriga caalamka Soomaaliyeed Sheekh Usmaan Sheekh Umar Sheekh Daawud Sheekh Ismaan Xidig Allah wa balligh salami li jiraniha وبلغ سلامي لجيرانها لهم كان رب السماء مصعفا لهم كان رب السماء مصعفا اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم على حبيبي محمد حبيبي محمد عليه السلام الله واقف بي على قبر daawadayaal imika waxaynu soo gaarnay guriga Sheekh Usmaan Sheekh Umar Sheekh Daawud Sheekh Usmaan Xidig soo dhaweyn kadib culimada waxay la kulmi doonaan sheekha بريتو oo talaadaha ayaa la filayaa inay culimadu ka qayb gasho bandhiga kutubada ay alifeen culamaa diinka ahlu sunna wal jamaa oo ka dhici doona hoolka jaamacadda Imaam Shaafici ee degmada Hodan ayyuha al-mab'uth fina jita bil amr al-muda'i jita sharaf al-madina marhaban ya خير داعي يا النبي سلام عليك الله يا رسول سلام عليك حبيبه يا حبيب سلام عليك الله صلوات الله عليك روح سيرين غداك قصدنا غورا حواك مستجيرا بحماك زيرا على نداك يا النبي سلام عليك الله يا رسول soo dhaweyn kadib waxa goobta ka hadlay mashaayiqdii iyo qaar kamid ah culimadii halkan ku soo dhaweysay marti sharafka waxaan leenahay soo dhawaada magaaladiinii Muqdisho ee caasimadda ahayd ayaan idinku soo dhaweynaynaa waa magaaladiinii gaar ahaan waxaan idinku soo dhaweynaynaa gogoshii iyo mawlicii sheekhayna jaliilka ah Sheekh Ismaan Xidig Sheekh Umar Sheekh Daawud waxaan leenahay waxyaabaha aad u timideen waxaan ka sahlanayn amaba la dhihi karaa way ka qaalisan tahay aragtida iyo la kulanka sheekha aad aragteen wajigiisa oo timideen oo aad maanta xadradiisa iyo goobtiisa aad soo gasheen ayaa iyaduna qaaligeeda iska leh aad iyo aad baad u mahadsantihiin culimada Soomaaliyeed oo deegaanada ay Soomaali degto oo dhanka kala yimid oo maanta aan soo degay magaalada Muqdisho بالضيافة معرض بندقي كتبته علماء الصومالية أهل السنة والجماعة مرتقات كيسي كوي مادين وقوش الشيخ ما أنت سوق لنا وحن لنا جزاكم الله خيرا
marxigana waxaan leenahay runtii waxaad soo gudateen howl weyn u timaadeen mid aad u qiimo badan halkan aad kala kulanteen oo ah العالم الرباني والولي الرحماني شيخنا الشيخ عثمان حضرتيسي هذا ما أنت كسور لواتان وفضل إلهي وسمي ونويا لي وحلنا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله إله أن وشكرنا لنا وأنهم علينا شيخنا إيو جماعة قوش ما أنت وفي ذي سي dhammaan waxaan leenahay jamaacoyinka jihooyinka nooga kala yimid soo dhawaada gogosha ugu horeysay ayaa nasiib u heleen caalimkii weynaa oo Soomaaliya Sheekh Usmaan Xidig in maanta ay maartay aan ku soo dhaweyno nasiibkaas qof nasiib leh ayaa heli kara inagoo dhanna Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaan uga mahad celinaynaa waa nicmo Ilaahay uu na siiyay waxa yeelay caalimka weyn maanta hadii gogoshiisii aan ku jirno oo wax Ilaahay subxaanahu wa ta'ala looga mahad celiyo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inoo daa'imo marka waxaan leenahay soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada waxaan salaan kaliya laaba aan ku salaamayaa mashaayikhda culimaa u diinka nagu soo dhaweeyay xaruntan qiimaha badan anigoo si gaar ah u sii salaamaya uguna mahad celinaya sheekheena weyn Ilaahay raalliha ka ahaadee Sheekh Usmaan Xidig iyo dhammaan mashaayikhda kale iyo dalabatul cilmiga la joogaba waxaanu ahayn waftigii ka yimid gobolada kala duwan ee dalka iyo dalka hareerihiisaba waxaanu u nimi waxay ahayd soo bandhiga kutubta culimada ahlus sunna wal jamaa ee Soomaaliyeed iyo inaanu soo booqano goobaha muhiimka ee taariikhiga mashaayikhda waxa ka nool wadankan jooga iyo maxaan ku radaa aasaartii kuwii maxaan ku radaa tagayba ay ka tagay inaanu soo booqano inahaas u safarka iyagu ku eega waxaanu ka bilownay goobihii ugu muhiimsanaa goob ka mid ah mawlacan qiimaha badan leh xadradan qiimaha badan leh sida fiican loogu soo dhaweeyay loogu ikraamay waxaanu leenahay culimada jazaakumullahu khayr ikraamid iyo soo dhaweyn iyo sharfid aanan sida runtii mutaysanin ayaa nagu soo dhaweyseen guntii iyo gabagabadii waxaa xafladda ka duceeyay caalimka Soomaaliyeed Sheekh Usmaan Sheekh Umar Sheekh Daawud Sheekh Usmaan Xidig خير الله إنسيو أهل السنة والجماعة كور الله إن كديجو كربا آخره يمد الدنيا به الله إن كوريو سويمات كأسوتي معدني كيلا بعض ونقنايا شرر بدن سويمات بدن كي قدم بيان الله كديجو أهل السنة ده خلاف الله كوريو سومالي كلمة هي مالي الدين كيجوان أهل السنة خلاف الله كوريو الله مدايو ما ملمدة الله سيو الله سيو حسين شيخ أحمد شبكة عالمية المتحابون في الله مقدشو أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي يا النبي سلام عليك الله يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله صلوات